tababarkan oo ay soo qabanqaabiyeen ururka Asdiqaa Alkhayr ee horumarinta bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Tababarkan oo u gaar ahaa gabdhaha ayaa lagu barayay xirfadaha adeegsiga baraha bulshada. Ujeedada ayaa ahayd in sare loogu qaado wacyigelinta gabdhaha Soomaaliyeed looguna iftiimiyo sida ugu wanaagsan oo ay uga faa'iideysan lahaayeen shabakadaha baraha bulshada. Ustaad Cabdinaasir Cali Cashara oo ku hadlayay magaca ururka Asdiqaa Alkhayr ayaa ka warbixiyay ujeedka tababarka. maanta idinkan hortaagan waxaa tihiin hooyooyinka beri haddii ay idinku wanaagsan tihiin taas macnaheedu waxay tahay inaad berina soo saari doontaan uwad wanaagsan soo maaha saas darteeda waxaan doorbidnay xoogga saarnay dowladda inaan ku gaayeerno gabdhaha waxyaaba la isweydiiyey waxaa ka mid ah maxaa ciwaankan ku doorteen ciwaankan waxaan ku dooranay dagaalka ugu weyn adduunka maanta ka jiro ayaa wuxuu ka jiraa baraha bulshada soo maaha meesha ugu badan oo gabdhahayna maanta haddii la rabo in la leexiyo ama wadada laga dhumiyo waxaa loo soo maraa baraha bulshada loo soo maraa. Tababarka ayaa inta uu socday waxaa cashiro kala duwan ka bixinayay tababarayaal jaamiciyiin ah xirfad sarena u leh dhanka tababarada sida Ustaad Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed iyo Ustaada Ubax Cilmi Yuusuf. waxaa kaloo muhiim ah in la hubsado waxyaabaha Facebook aad soo gelinayso war walba aad aragto inaadan share garaynin iska hubiso marka hore dada waxay jecel yihiin update waaye si loo dhaho war walba ay arkaan inay maaragtay iska share gareeyaan dadka kale inay gaarsiiyaan ay rabaan been waxa kaga filan qofka wax walba uu maqlo inuu iska sheego taasaa maaragtay been noqonaysa labada faa'iidada iyo khasaarada oo leeyahay advantage and disadvantage shay kasteeto nagu cusub marka jaamacadaha ka baranayna waa aragnay waxaan dhahnaa faa'iidana uu leeyahay khasaarana uu leeyahay hadda marka waxaan arki doonaa faa'iidadiisa iyo khasaaradiisa marka faa'iido wuxuu leeyahay in education markii la qof markuu wax barana waxa ogeena waleena ayaantii corona oo bilaamayay in guriyaha lagu qaato casharada la dhahay casharadaas maxaa ku qaadanayseen Zoom ku qaadanay qaybaha dambe ee tababarkan ayaa waxaa qodobdooda aqooneed ah ka wada qayb galay qaar ka mid ah gabdhaha tababarka qaybta ka ahaa ciwaanka doodan waxa uu ahaa keebaha badan faa'iidada iyo khasaaraha ay ka dhaxlaan gabdhaha Soomaaliyeed shabakadaha baraha bulshada waxaana si wada jir uga qayb galay laba group oo qayb aaminsaneed in gabdhuhu faa'iido u leeyahay adeegsiga baraha bulshada halka dhinaca kalena ra'yi taa ka duwan ay qabeen oo ahaa in gabdhuhu aysan wax faa'iido u lahayn khasaare mooyee aan idin wadaagno qayb ka mid ah dooda oo aad u dheeray ugu dambeyntii waxaa kelmad dardaaran ku soo xiray Ustaad Cabdiwahaab Cumar Cusmaan oo ah gudoomiyaha ururka Asdiqaa Alkhayr kuna dardaarmay gabdhihii ka faa'iideystay tababarkan inay dhaqangeliyaan gaarsiiyaan bulshada waxa ay ka kororsadeen inta uu socday tababarka ka faa'iideen ugu dambeyn waxaan isu dardaarmaynaa waxay tahay inaan barnay inaan markaasi bulshada sii gaarsiino inagana aan ku dhaqanno waxa maantooda waxay hadlayo waxay ahayd waqtigeena aan ilaashado oo waa baraha bulshada markaasi yeesan nooga bixin waqtiyadeena maanta haddii qof walba inaga mid ah uu isxisaabiyo maalintii imise jeer ayaa isticmaashaa ama meeqa saacado ma jiraan applicationada lagu ogaado daqiiqadaha ama saacadaha aad isticmaasho internetka ama baraha bulshada qofka isticmaalo applicationaa jiro oo kuu sheegaya inta daqiiqada inta saacado aad isticmaasho tusaale ahaan waxaan isticmaalnaa WhatsApp Facebook Twitter Instagram dhammaantooda wuxuu kuu sheegaa mid walba daqiiqadii aad isticmaasho waa tacjibaysaa hada waxaan isleedahay 4 saacadood ama 2 saacadood maalintii oo ka mid ayaad isticmaashaa dad sidaas oo kale u fikiraya ayaa waxay ku soo baxday 16 saacadood maalintii ka mid ah inuu mobilka isticmaalo qaar ka mid ah gabdhihii ka faa'iideystay barnaamijkan ayaa kaga mahadceliyay Asdiqaa Alkhayr
tababarkan ay u qabteen. talasiina inaan ugu biiriyo ururkan quruxda badan leh ee asdiqaa ilqeer hadaay markuu hadlaayay Ustaad Cabdinaasir Cashara wuxuu ka dhawaajiyay barnaamijkan waxa ugu talagalnoo dhahay gabdhaha dad baa dhaheen gabdhaha bis maxaa ugu qabateen jawaabta uuna siin waxay ahayd bulsho walba waxay ka farcantaa gabar kullama gabar fiican la helo waxa la helaa bulsho fiican kullama la helo gabar horumarsan oo yani caaqilada oo indheelgarada waxa la helaa bulsho toosan oo horumarkan u istaagta waxaan rabaa inaan idinka codsado barnaamijkan oo ugu magac darteen xirfadda adeegsiga baraha bulshada waa barnaamij aad u qiimo leh xataa dhanka gabdhaha markii la dhaho inaad bartaan ama aad sameysaan barnaamijyo sidaan oo kale ah oo ayagana hoos imaanayo gabadha Soomaaliyeed ama haweenka Soomaaliyeed maxay faa'iido ay ka dhaxli karaan baraha bulshada barnaamijyada noocan oo kale oo tababarka oo xirfadda leh oo aad ku dhiirigelinaysaan gabdhaha yoosan ku ekaanin anaga oo kaliya hal hada phase 1 hal hada 2 ilaa phase 3 tani ayaa qayb ka ah dadaalada uu ururku ugu jiro horumarinta kobcinta garaadka iyo aqoonta guud ee dhalinyarada Soomaaliyeed.